السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جنالك دادكو عصب تفضلن سبسكرايب قري هورا داد وجوكتنا لايك نودي كومنتي ومحسنتاي مانتي iyo فيديو عصب. waxay ahayd habeen waxaan degnaa gurigaygu dhagan waxa degnaa nin iyo naagtiisa maalin walba waa ay buuq jireen ninkaas iyo naagtiisa waxayna ku buuqi jireen hadallo maala yacni ah anigana waan la yaabi jiray habeenkii ku xiga anigoo qolkayga jiifa qayladooda ayaa isoo kicisay sababtoo waan u dulqaadan waaye habeenkaas xaaskiisa waa uu garaacay leerkan waa ay dansadeen anigana qaylo dambe ma aanan sii maqlin waxaas leetalo gabadha muxuu ku sameeyay miyuu dilay ninkii isla maraanta dariishada ayaan ka soo fiiriyay balse leerkii dhan waa la daari waayey waxna waa maqli waa aniga sidaan u fadhiyay ayaan waxaan arkay gaari gurigooda ku soo degay waxaana ka soo degtay gaarigaas 4 nin waxayna wateen dhar madow ah waxayna aadeen ninka gurigiisa markaan soo fiiriyay nimanka waxay gaariga ku tuureen bac madow wax ku jira aniga shaki ayaa igalay isla mar ahaanta booliiskii ayaan wacay waxaan u sheegay gurigaas wax ka dhacayo booliiska waxay u tagay ninka guriga la waxay dhaheen xaaskaaga xagee geesi sheeg asagana wuxuu ku jawaabay xaaskayga aniga ma aanan dilin gacan maana u qaadin guriga hooyadeed ayay aaday ninkii shaki ayaa booliiska ugu jiray balse aniga waxaan ogahay inuu xaaskiisa dilay waliba bacmadooda wuxuu ku soo riday inay xaaskiisa aad maalmaha kamid ayaan waxaan maqlay ninkaas geeridiisa waxa uu ku dhintay balwad uu isticmaali jiray maalin walba